السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا أصحابته halkan iga daawanaysa meel walba waa joogtaan iyo walba muuqaalkaygu uu marka idin soo gaarayba muuqaalkan waxaan doonayaa inaan bal kaga hadlo arrimihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya waxaana la oran karayaa Soomaaliya waxay xilligaani ay gashay marxalad aan horey loo arag muddooyinkii hadda la soo dhaafay oo dhan waxyaalaha aan rabo muuqaalkan inaan ku fiiriyo ayaa waxa kamid ah barkicinta shacabka magaalada Muqdisho oo gaartay levelkii ugu yaabka badnaa dhacdooyin argagax leh ayaa ka soo baxaya gudaha magaalada Muqdisho marka la fiiriyo sida dawladda Soomaaliya ay ula macaamilayso dadka danyarta oo markaas laga burburinayo guryaha cooshashka ah oo ay ka degan yihiin gudaha magaalada Muqdisho waxaan sidoo kale aan doonayaa muuqaalka inaan ku fiiriyo colaad weyn oo laga baqayo inay ka qaraxdo gudaha magaalada Baydhabo kadib markii laba ciidan ay halkaas isku hor fariisteen oo ay bilaabatay sansaan colaadeed shacabkiina magaalada Baydhabo waxay uga qaxayaan si inaba aan caadi ahayn waxay sheegayaan dadka magaalada Baydhabo ka soo waramaya inay Baydhabo hadda ay yeelatay wixii aysan yeelanin muddooyinka hadda la soo dhaafay oo dhan waxa la isweydiinayaa basagaashan iyo kowdii iyo xilliyadii ay Soomaaliya ka jirtay hogaamiye kooxeedyada ayaa hadda Baydhabo ka soconaya bal arintaana waynu fiirin doonaa iyo wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Baydhabo ee dhanka kale marka la fiiriyo dhankaas Galmudug iyo magaalada Dhuusamareebna ciidamo ay dawladda Soomaaliya ay leedahay oo tirabeel ah ayaa ku sii qulqulaya gudaha magaalada Dhuusamareeb wuxuu xasan doonayaa inuu Dhuusamareeb markaan u bedelo xaaladda ay maanta Baydhabo ay markaasi ay ku sugan tahay bal qodobada ayaynu muuqaalkan bal ku dul istaagi doonaa oo aynu markaa ku soo gudbin doonaa soo dhawaada saaxiibayaal meel buu joogtaan isagoo muuqaalkaygu markaa idin soo gaarayba waa 9 May 2026 waana markii ugu horeysay oo aynu maanta hawada ku Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo muddo xileedkiisii uu hadda ka dhiman yahay 5 maalmood oo kaliya ayaa xilligaani wuxuu u muuqdaa nin doonaya inuu meel walba uu dab ku sii dajiyo ka hor inta uusan xilligiisa dhamaanin waxa la wixii uu qaadan karana markaasi doonaya inuu horay uu markaasi uu u sii qaato marka la fiiriyo talaabooyinka uu qaadayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waqtigiisu hadda uu gabagaba yahay ayaa waxaad is leedahay wuxuu Xasan Sheekh Maxamuud doonayaa inaanba waxba loogu imaan wuxuu rabaa inuu ka tago meel cidla ah si aan bacidna aysan uga dambaynin qorshaha uu doonayo Xasan qorshe noocay ah waa marka si dhab ah loo aqriyo dhacdooyinka hadda ka soo baxaya Soomaaliya oo meel walba ka soo yeeraya meel walba qayladu hadda way isqabsatay cid walba markaasi way qaylinaysaa ee hadii aynu bal ku bilowno dhanka barakicinta waxaan rabaa inaan idin la wadaago mid kamid ah dhacdooyinka dadka qalbiyadooda taabtay ee saacadii hadda la soo dhaafay si weyn ay warbaahinta uga hadlayeen baraha bulshadana markaasi loogu faafinayay hadii aynu fiirino muuqaalkan ina hor yaala waa oday Soomaaliyeed oo 90 sano jir ah oo gurigii uu deganaa xataa loo sugi waayay inta laga saarayo asagoo gurigiisa ku jira ayaa la bilaabay in gurigii uu deganaa cagaf la mariyo oo la soo burburiyo waa oday Soomaaliyeed waa aabba Soomaaliyeed da'diisa ilaa 90 sano ayaa lagu sheegay inuu yahay ma socon karayo kadibna gurigii uu deganaa inta laga bixinayo waa loo kaadin waay markaysa waxaad arkaysaa marka cagafta Xasan Sheekh Maxamuud inay tahay mid la socota muddo xileedkiisa oo ka gaarsii ay shaqadu markaa ay u socoto bal wax yar muuqaalka ila daawada kadibna kalimaad kale ayaynu ku dari doonaa waxyaalaha muuqaalkan inooga baxayay marka odaygan laga bixinayo guriga miskiinka ah asagoon albaabka laga soo bixinin oo aan la gelinin bajaajta ayaynu maqlaynaa duminta gurigiisii la duminayay xataa bajaajta wili lama saarin isagoo ku jira ayaa dabcan lagu bilaabay in markaasi la burburiyo markaysan arinta kale ee la yaab kale ee cagafta Xasan Sheekh Maxamuud ku saabsan ayaa waxay tahay waxa soo baxaya warar sheegaya oo waliba ka imaanaya dad waaweyn sida Sheekh Shariif Sheekh Axmed baasi public xataa u sheegay cagafta shirkadda iskale waxa iskale baa la yiri Xasan Sheekh Maxamuud walaalkiis
marka xasan amarku bixinaya walaalkiisna waa ninka duminaya cagaftu markaa waa mid reerka xasan sheekh maxamuud ay leeyihiin shirkadda ayaga iska leh duminta ayaga wax duminaya guryaha ayaga qaadanaya amarkan xasan sheekh maxamuud ayaa bixinaya marka waa wixii laga dhaxlay dawladnimadii qaabka qabiilaysan lagula wareegay iyo qabyaalada 2022 kuwa badan oo xasan sheekh maxamuud muddooyinkii hadda la soo dhaafay ugu yeerayay dal xureeye weligeed ma maqal wax xureyn la yiraahdo kuwa dal xureeye ugu yeerayay ay maanta ilkaha ku qaadatay cagafta oo xasan sheekh maxamuud gelinayo guryaha dadka masaakiinta ah ee ku yaala magaalada Muqdisho kuwa dal xureeye lahaa ayaa kamid ah kuwa ay cagaftu ay markaa ilkaha ay ku qaadatay qodobka ay tasan kale qodob kale markii aynu fiirino magaalada Baydhabo iyo caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed ayaa waxay foolanaysaa baa leeyahay colaad hor leh maalintii uu magaaladaasi la wareegay xasan sheekh maxamuud ilaa iyo maantana magaaladaasi amnigeedu wuxuu ahaa mid qalqal xoog leh uu ka jiray habeen waxaa la maqlayaa xabad amnigii ayaa magaalada gacanta ka baxay xafiisyadii dawladda iyo maamulkii hore oo ay ku shaqeysanaysay ayaa la boobay magaalada waxaa isku hor fadhiya laba ciidan waa ciidanka dawladda Soomaaliya oo markaas xasan sheekh maxamuud uu ka soo daabulay magaalada Muqdisho ciidanna waa ciidankii magaalada ka baxay ee taabacsanaa madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagareen marka waxay noqotay Baydhabo magaalo la isku hor fadhiyo intii xasan joogayna waxa magaaladan ka jirtay colaad iyo cabsi waxaana mar walba la isweydiinayay goormay colaadaanu ay dib uga qarxi doontaa magaalada Baydhabo Cabdicasiis Laftagareen intii uu magaaladan haystay waxyaalihi aynu ku xasuusano ayaa waxa kamid ahayd in magaaladan ay dib u soo laabatay biricdeedii dhismayaal dawladda oo fiican la dhisay amni ay ahayd kala dambeyn ay lahayd isla markaasna Baydhabo ay kamid ahaydba magaalooyinka soo kobcaya marka la fiiriyo koonfurta Soomaaliya laakiin arrimaha iyo dhan ayaa xilligan waxay u muuqdaan kuwa indhaha ciid looga shubay oo dib Baydhabo loogu celiyay bishii ay ka soo bilaamatay iyo waliba 1991kii markii la fiiriyo sawirka mugdiga ah ee ka muuqanaya magaalada Baydhabo ma jiro wax nidaam ah iyo kala dambeyn ka shaqeynaya gudaha magaalada Baydhabo sidaan idin sheegana ciidamo ayaa isku hor fadhiya shacabkuna waa kuwo markaasi aad uga walwalsan xaaladda ay ku sugan tahay magaalada Baydhabo waxa hadda soo baxaya marka warar cusub oo sheegay magaalada in lagu dagaalamayo ciidankii magaalada banaankeeda deganaa ee Laftagareen taabacsan waxay soo dirayaan fariimo xilli magaaladan soo weerarayna shacabku inay ciidamada taageeraan koonfur galbeed oo dib u xoreynaya magaalada dawladda Soomaaliya iyo xasan sheekh maxamuudna magaaladii ayay iguna haystaan wala is hor fadhiya waxa la arkayaa dadkii shacabka ahaa oo qaxaya ciyaalkii ilkaha ku qaadanaya joodariyada dhabarka ku wata baabuurta yaryarka ahna magaalada uga baxaya meel aadayaan lama yaqaano bal aynu daawano mid kamida saraakiisha taabacsan Laftagareen ee dawladka magaalada fadhiya ee fariimaha soo diraya iyo xaaladda ka taagan magaalada Baydhabo galbeed guud ahaan gaar ahaan reer Baydhabo waxaan leenahay dhiirigeliya ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya oo rabo inay idinka dulqaadaan kuwa duulaanka ku yimid magaalada Baydhabo burburiyay dawladnimadeena oo marka dhinac ka eegtaana midab qabiil leh oo qaarkood balaadan aqoonin luqadda ay ku hadlayaan soo dhaweeya garab istaaga caanaha iyo biyaha u geeya waa kuwa dulmiga muddada 30 cishaa la idinku hayay idinka qaadi lahaa marka Baydhabana xaaladaas ay gashay lama yaqaan waxa xaaladeeda ay markaasi ay noqon doonto Laftagareen baa la bedelayaa waxay dhashay inay Baydhabo dib ugu laabato meeshii laga soo qaaday qodobkan dasan ka oranaya qodobka ugu dambeeya marka la fiiriyo dhanka galmudugna waxa laga soo sheegayaa colaad kale iyo in xasan sheekh maxamuud uu doonayo inuu dhuusamareeb u bedelo Baydhabo waxa hadda aynu ka warramayno ee Baydhabo taagnaa nidaam la'aanta ciidamada is hor fadhiya ee dawladnimada lagu heshiin waayay iyo arrimahaasi ayuu xasan doonayaa inuu magaalada dhuusamareeb uu markaas uu ka hirgeliyo maamulka galmudug la yiraahdo awalba maamul qabiil loo kala degan yahay buu ahaa ma jirin nidaam galmudug la yiraahdo oo galmudug oo dhan ka taliya ma jiro reer walba tuuladiisa ay haystaan dhinac qabiil baa u degan dhinac kala qabiil baa u degan dhinac kala qabiil baa u degan reer walba hubkiisii waa haystaa meesha kaliya oo lagu shaqeynayay oo nidaamka galmudug uu fadhiyay magaalada dhuusamareeb
sidii baydhabo kale ayduna ahayd inkastoo dhowr degmo oo kale ay haysteen maamulka koonfur galbeed laakiin waxaa la oran karayaa dhuusamareeb unbay ka talisaaba ama si caadi ah uu maamulka galmudug uga shaqeeya inta kale qabaa'ilo hubkooda haysta laakiin macaamil iyo heshiis uu maamulku kula jiro unbay ahaayeen laakiin waxay doonaan samayn karaya haddii marka dhuusamareebta lagu dagaalamo maxaa ka soo haraya nidaamka galmudug oo su'aasha ugu weyn la isweydiinayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ciidamo ku daabulaya dhuusamareeb qaar diyaarada lagu geenayaa baa la sheegayaa qaarna dhulka ayay ka galayaan saacadii hadda la soo dhaafay waxa soo baxaya muuqaal muujinaya in ciidamo laga soo daabulay dhankaasi xarar dheere oo markaasi ay baxda soo mareen kadibna ay galayaan magaalada dhuusamareeb oo boqolaal ciidan marka ciidamadii lahaa al-shabaab bay la dagaalamayaan furan ciidan bay ku jiraan dawladda ayaa iska leh iyo dhuusamareeb baa lagu difaacaya kulligood hadda waxa la isugu keenay dhuusamareeb cadowga ugu weyn ee Xasan Sheekh Maxamuud uu xilligan uu leeyahay marka laga hadlayo gudaha maamulkana waa ninka loo yaqaano qorqor oo la rabo in xilka markaasi laga turto qorqor asaguna dhankiisa wuxuu wataa ciidamo qabaa'il ah oo abaabulan oo tiro badan oo ayaguna hanjabayo ku haya annagu reer hebel baan la yiraahdaa marka halkaana waxa la sheegayaa inay colaadi ka soo socoto xasana sidii uu ugu duulay magaalada maxaa la yiraahdaa baydhabo ayuu ugu duulay magaalada dhuusamareeb wixii ka soo baxana ayaduna waynu arki doonaa marka si guud markii aad fiiriso xaaladda ay Soomaaliya ku sugan tahay waa mid shacabka la barakicinayo ee magaalada Muqdisho waxaan aragnay ay ka taagan yihiin waa mid aynu arkayno oo baydhabo ay colaadi ka taagan tahay xilligaana baydhabo laga qaxayo la iskuna hor fadhiyo iyo midda kale ee dhuusamareeb ayaduna hadda ka taagan ee leeyahay goorma lagu dagaalami doonaa iyo gacan ku haynta magaalada dhuusamareeb marka nidaamkii Xasan Sheekh Maxamuud oo ay 5 maalmood ka harsan tahay ayaa waxaad moodaa marka inuu ku soo dhamaaday gacan cidla ah mana jirtaba nidaam dawladeed oo caaw meel ka jira oo Xasan laga dhaxlaya kii baydhabo waa la burburiyay kii Muqdishona waa kala arkaysaan oo xaaladiisu ay riski ku jirto niman mucaarada oo asaga ku reer ahna ay xilligan u hanjabayaan oo ay sugayaan in haddii 5 maalmood ay dhamaato inay yiraahdaan dalka dawladnimo kama jirto madaxweyne mati dhuusamareebna oo mid hadda aynu ka hadlaynay marka cid walba waxay isweydiinaysaa maxaa gacanta Xasan Sheekh Maxamuud ku soo hari doona maxaa sadhici doona maalinka ay taariikhdu tahay 15 May 2026 intaas ayaan muuqaalkan ku soo koobay inta dib isaga soo laabanay waxa idin ka tagaysaan waadino assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh